munaasabad ballaaran oo lagu xusayay xuska maalinta dhiraynta Soomaaliland oo ku beegan 15 Abriil ayaa maanta lagu qabtay xarunta wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka Awdal. Munaasabadani oo kulmisay mas'uuliyiin sare oo kamid ahaayeen gudoomiyaha gobolka Awdal, qaar kamid ah isuduwayaasha wasaaradaha laamaha dawladda gobolka, xubno kamid ah golaha deegaanka magaalada Boorama, gudoomiyaha jaamacadda Camuud, maamulada degmooyinka hoos yimaada gobolka Awdal, madax dhaqameed iyo marti sharaf kale ayaa waxa ugu horreyn hadalka qaatay isla markaana ku dheeraaday maalintan iyo ahmiyadda ay deegaanka u leedahay isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka Awdal Cabdiwahaab Xuseen Muumin. maanta madashan waxaynu joognaa saad arkaysaan waa maalintii mudan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu asteeyay inay noqoto bal ahmiyadda dhirta in la beero, inay weynino maalinta inaan dhirtaynu beerno. cimilo fiican baan leenahay, waxaan rajaynayaa insha Allah inaan maanta ahmiyadda aan xoog saarno. wasaaraddan oo bariyahan dambaba waxay heegan ugu jirtaa si u horumarin lahayd soo saaridda dhirta oo marka dhir inta taasoo dhir ayaan sanadkan diyaarinoo ugu talagalnay oo noo taala. waxaan aad iyo aad si gaar ah ugu mahadcelinayaa barasaabka gobolka oo hadday xitaa jimco tahay oo u baahano deegaanka iyo mageed baa saa la leeyahay han idhaahna ama buur waxba sidaas saacadaaba ku imanaya. aad iyo aad mahadnaq markaa wasaaradda markaan ka tashanay waxaan isla garanay awaariska inaan ku nidhaahno mudane gudoomiye waad mahadsan tahay. waxaan aad iyo aad doonayaa inaan inigu mahad celiyo ka soo qayb gashaan xafladan iyada ah oo ah 15 Abriil 2022 oo ah maalintii loo asteeyay madaxweynaha qaranku in la xuso maalinta dhirta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. sidoo kale waxaa madashaasi hadalka qaatay Cabdilaahi Xuseen Caatay oo kamid ah golaha deegaanka magaalada Boorama, gudoomiyaha degmada Quljeed, Maxamed Hodoon Cismaan iyo qaar kamid ah isuduwayaasha wasaaradaha laamaha dawladda gobolka Awdal. 15 Abriil waa xilli roobkii noo bilaabmay, waqtigeega wadata, cimiladeeda wadata, waa xilli ku habboon. marka horta maalinta madaxweynuhu wuu asiibay ay wasaaradda haddii la yiraahdo ka gobolka deegaan ahaan waxaan ballan qaadaynaa insha Allah inaan wada shaqayn doono dhinac walba ay magaalada gudaheega adiguna waxa diyaarisa wadooyinka cusub aan sameynaa haddii la yiraahdo dhirtii lagu beeri lahaa inoo diyaar insha Allah. Anoo ka socdo degmada Quljeed iyada oo dhirta muxuu ahaa wasaaradaha iyo degmooyinka iyo gudoomiyaashuba dhamaantood iyaga oo ka soo wada qayb galay si loo qaato degmo walba loo gaarsiiyo insha Allah waxaan qaybteedan qaadanaynaa. kulay anaga wasaaradda deegaanka wada shaqayn baa naga dhaxaysa oo inta nimka isku duwan cusub joogo aad iyo aad buu muxuu ahaa lacagta noogu saaray inaan ka wada shaqayno in ilaah biyaha la sameeynaya ani deegaanka wuxuu dhimin. wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska kulay wasaaradda deegaanka insha Allah ta'ala qorshe ballaaran baan wada leenahay oo ka wada hadalnay isuduwaha taasi oo ah sidii mataqaana dhirtan looga qayb qaadan lahaa. kulay magaalada waa magaalo dalxiis oo goobo badan oo dalxiis ay ku yaalaan taaliftirkeegana aan doonayna inaynu ka dhirayno oo goobo cayiman oo aan u istaagno wasaaradda deegaanka nagala shaqeeyo iska kaashanayno. Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawal iyo gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Saleebaan Axmed Guuleed oo madashaasi ka hadlay ayaa ku baaqay in meel looga wada jeestay ilaalinta deegaanka. xilku xusaaran cidii wax garanaysa xilkan saaran yahay cidii wax garanaysa hadday kacdo oo cidda wax garanay ay gaarsiiso waxa weeye dhulkuna waa badbaadaya inaguna waan badbaadaynaa. aqalada horteeda iyo dariiqyada iyo dibadda inaan wada baxno weeye balintaana ay u dhaxaysa Boorama iyo Camuudna waxa weeye gacan aan saarno nin walba geed ha ku yeesho. waxaan isuduwarta aad u amaanayaa inaan hortiiba waxba dhaqdhaqaaq weyn meeshan kama dhicin xagga waxa sheegay wasaaraddiisa in wasaaradda ninkaas maanta ugu horeeyay hadda ninkeedii helay waa ka waxaynu sheegaynaa aynu baashaha gudoomiye maanta aynu go'aansan gobolkaasi inuu gobol cagaaran ka dhigno si dhab ah tan Camuud iyo halkana waan idin ballan qaadayaa la weydiisanayna anaguna gacan. ugu dambeyn waxaa madashaasi hadalka qaatay gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Tiimbaro. aan la shaqayno wasaaradda isuduwayaashiina kale wasaarad walba oo laga rabaa in xafiiskeeda dhirayso waa lagu dabagelayaa. waxa weeye qof walba horta intaynan joogtaa aan iska bilowno oo horta qof walba ku talagal maanta inaad geed qaado oo aad beerato wixii kale common inaan ku dabagalo dadka in waxaynu soo celino bal caruurteeda lafteeda aynu war bal inaan walba intaad geed beerato geed ka xanaanayso oo waalidka laftiisu oo ilmihiisa ku sheegaro geedkaaga ka waran.
waxaana uu sheegay intaa kadib mas'uuliyiintani ayaa bilaabay qorshe lagu dhireynayo jidka isku xidha jaamacadda Camuud iyo magaalada Boorama oo hordhac u ah mashaariic dhireyn oo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka Awdal ay ka fulinayso guud ahaan deegaanada hoos yimaada gobolka Awdal. Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saha warbaahinta qaranka Somaliland magaalada Boorama.